kulankan ka dhacay maxadka cilmi baarista arrimaha Afrika ee Chatham House waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka kala socotay qaaradda Afrika, diblomaasiyiin, warbaahinta caalamka iyo dadweynaha aad u tiro badan oo reer Somaliland ah kana kala yimid gobolada wadanka Ingiriiska. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo halkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu ugu horeyn u mahadnaqay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee wadanka Ingiriiska oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dawladda Ingiriiska Mr David Cameron oo ay weheliyaan wasiiro iyo diblomaasiyiin fara badan oo madaxweynuhu la kulmay. waxa kale oo khudbadiisa madaxweynuhu warbixin dheer uu kaga waramay xaaladii iyo marxaladihii kala duwan ee Somaliland soo martay oo ay ka mid yihiin doorashooyinkii sida nabadgelyada u qabsoomay ee ku dhisnaa hanaanka dimuqraadiyadda ee Somaliland ka qabsoomay iyo waliba sidii quruxda badnayd ee ay u dhaceen gaar ahaan doorashadii ugu dambeysay iyo sidii loola kala wareegay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu shaaciyay xiriirka wanaagsan ee Somaliland la leedahay qaaradda Yurub iyo Mareykanka gaar ahaan dalka Ingiriiska oo uu tilmaamay in ay si wanaagsan uga warhayaan arrimaha Somaliland. madaxweynuhu waxa kale oo carabaabay qalaasaha ka taagan mandaqada geeska Afrika iyo sida Somaliland ay uga dabaalatay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa kale oo ka hadlay arrimo la xiriira xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga shisheeyaha. waxa uu xuseen Somaliland ay horumar la taaban karo ka sameysay xagga dakhliga oo madaxweynuhu sheegay in 3 bilood ee ugu dambeeyay uu kordhay dakhliga Somaliland 25%, kaasi oo la rajaynayo in uu ka sii kordho. madaxweynaha ka hor waxa isaguna halkaasi ka hadlay Lord Trisman oo ah madaxa laanta cilmi baarista arrimaha Afrika ee Chatham House, waxaana ugu horeyn uu mahadnaq u soo jeediyay dadweynihii iyo diblomaasiyiintii madashaasi ka soo qayb galay. intaasi kadib waxa uu carabaabay sida uu la dhacsan yahay Somaliland horumarka ay sameysay ee dhinacyada kala duwan, isagoo intaasi raaciyay in Somaliland uu leeyahay saaxiib gaar ah, saaxiibtinimadiisana uu ku adkeysanayo oo aanu marnaba ka tanaasuleynin. kulankan ka dhacay maxadka cilmi baarista arrimaha Afrika ee Chatham House ee wadankaasi Ingiriiska ayaa ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo madaxweynuhu halkaasi ka jeediyay khudbad taariikhi ah.